Markaa muuqaalkan daawatid maanta kadib ma xaqiri doontid qof bini'aadama heer walba ee nolosha joogo. Fiir wiilkan yar waxa uu wareejinayaa dhar, wuxuu u yimid wiilkaas iyo gabadhaas meesha fadhiya, wuxuu weydiistay in wax ka iibsadaan, kadibna si xun ayuu ula hadlay wiilkii yaraa. Wiilkii yaraa wuu iska tegey, waddada dhanka kale ayuu u gooyey, meel buu iska fariistay. Wiilkii iyo gabadhiina meesha fadhiyeyna waxa ay bilaabeen inay iska sii cunaan. Wuxuu damca sawir inuu iska qaado. Oh my God, waxaa ku saxday cuntadii, subxaan allah. waa luqmadii ugu horreysay uu qaaday is yidhi. Kadibna wiilkii baa arkay, wiilkii wuu soo tegey. Gabadhu waxay isku dayeysaa ninkan inay ka soo saarto cuntada ku margatay, laakiinse awood uma leh maadaama ninkan uu nin weyn yahay. Sidoo kale wiilkii wuu soo orday, waxa uu bilaabay inuu caawiyo ninkii haddeer ku xadgudbay, sida xun ula hadlay. wiilku waa wiil yar, ma awoodo inuu kor u qaado, laakiinse wuxuu isticmaali doonaa xirfad aad iyo aad u muhiima oo adii laftigaaga xataa cilmi kuu noqon doonta. Wuxuu soo qaatay suunkii uu wareejinayay, kadibna wuxuu ka geliyay ninkii caloosha, wuxuuna isku dayayaa inuu kor calooshiisa u hinjiyo si eer uu uga soo baxo, kadibna waxa dhuunta ku taagan ay dibadda uga soo baxaan. wakaa maasha allah wuu ka soo saaray, maasha allah wakaa ninka gacmaha saa ka siinaya, wixii dhuunta ku taagnaa waa laga soo saaray. ninkii yarkaa oo haddeer bahdiliyay ayaa ka soo saaray. gabadhu waxay isku dayeysaa, wiilku wuxuu isku dayayaa iminka inuu biyo siiyo. waa ninkii haddeer aad si xun ula hadlaysay, subxaan allah. gabar kale u timid, waxaa iyaduna isku dayeysaa inay caawiso marka ay la yaabtay xaaladda dhibban ee uu ku jiro. biyihii buu cabbay, xogaa hadda nafis buu bilaabay, gacmaha ayaa loo celcelinayaa. gabadha kale waxay isku dayeysaa inuu ninkan eer qaato si ay waxyaalihii saameynta uu ku yeeshay, yacni wixii deg uu isaga soo saaray uu ga bogsoodo. bal fiiri ninkan waxa weeye xaaladdiisa. haddeer wuu faraxsanaa, haddeerna wuu murugaysan yahay. noloshoo dhanna waa saas. waxa uu usoo qaadayaa alaabtii wiilka yarka uu wareejinayay, wuxuuna u siinayaa si ay liidnima ku jirto, laakiinse uu ka murugaysan yahay waxyaalihii uu sameeyey wiilkii yaraa ee haddeer uu sida xun ula hadlay. noloshaada si kastoo ay tahayba, weligaa iska ilaali qof bini'aadan ah inaad xuquuqdiisa ku xadgudubtid. dadka bini'aadanka waa isku mid, ma kala sarreeyaan, ma kala waaweyna, ma kala fiicna. yacni keliya waxa keliya ee noo dhexeeya ee aan ku kala fiicannahay ee ilaahay nagu kala sarmeeyey waxa weeye taqwa. yacni qofka hadduu kaa wanaagsan yahay xagga diinta, camal wanaagsan sameeyo, this is the only thing that makes us different, right, guys? So qisadani waxa ay ku tusi doontaa exactly sida ay muhiim u tahay qof bini'aadana heer walba, xaalad walba, cid walba, meel walba uu ka yimid, iyo yacni xaalad walba adiga aad ku jirtid inaad marnaba tixgelin xaaladaha dhabta ee waxa weeye aan joogtada ahayn ee qofka bini'aadanka mar walba ku geedaaman. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Subscribe, like, share, comment. Guys, thank you.